هو أصلاً الوزارة سؤال شو كحكتو وحاكو قرن السلام عليكم ما حكوا مرة واحدة لكن سؤال شو ذاك آخرنا دولة هشيس سير أي كشوت إنتاج لاج بدك فكرتان دلائن أي كبحيان شعب الصوماليات هذا مسؤول كتير مثل قاعن كهاد قاتان يدو عندي بلوغين شعبك نبضي نرد قول waxaan rabaa waa su'aal aad u muhiim qofkii soo weydiiyana runtii waxaan rabaa inaan u hadlayo marka koowaad horta waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan annagu heshiis aan ka baaran digin ma galno koow labo wayba yar yihiin wax heshiis oo weyn haba yaraatee oo aan galnay sida anigu aan ra'iisul wasaaraha waddanka uga noqdo mana rabo waxaan dhegeysataan mana rabno in la galo heshiis aan loo keenin xukuumadda golaheeda wasiirada oo aan la geynin baarlamaanka oo aan madaxweynaha loo geynin oo sharci laga dhigin ma rabno wax la qarqariyo dhan eega dalkeena si uu dunida ugu soo laabto waa in aan ku shaqeynaa nidaam isla xisaabtan ah oo daahfuran nidaamkaasi waa inuu ahadaa nidaam dunida ay ku qanci karto dalkeena dadkiisuna ay ku qanci karaan waxaan rabaa marka in aad kala qaybisaan labo kuwa ka soo horjeeda dawladnimada oo wax walba siyaasadeeya oo wax walba oo xun facebookyada iyo ku soo qora meel walba si ay u carqaladeen dawladnimada iyo xaqiiqda maalmahan hadda waan aragnay in laga hadlayo heshiis lala galay dawladda Itoobiya annagu wax heshiis lama gelin dawladda Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka yimid dalkiisa waan soo dhaweynay waan shirki markuu dhamaaday war murtiyeed baa ka soo baxay war murtiyeeda waa in dhaqanka hore wax laga bedelaa waa inaan wada shaqeynaa waa inaad noo furtaan qaab dekadihiina aan u isticmaali karno dekadaha dadka Soomaaliyeed iskale shacabka Soomaaliyeed iskale wadan ma qaadan karo dekedeena haday qaadanayaan mar hore aan aqbalnayn dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa markay inaan la jahwareeyo waxaan rabnaa inaan nala xisaabtantaan laakiin idinkuna waa inaad waajibaadkiina ka soo baxdaan si aan xuquuqdiina wax uga bedesho arintaas waaya madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigi ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyay oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysaa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan isla soo marnay marka arintaas iyada ah maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiyey ma laha dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso ayay u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Etoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxa kula tartamaya inuu tartamo ma arko Djibouti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kuula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas aan waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hor u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo
maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragtidaasna waxaa ku xiga farsamadaasna waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisayaa wixii jidad waxaan la hilmaami karin bulshadu wali hadal hayaa halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigtee waxaan la hilmaami karin bulshadu wali hadal hayaa halaagii soobayo halkaad qalbi dhagax dhigtee 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 haddaba barlabaankii mas-uul hawshiisi gabaye hamuun dalku uma qabe hordhiga mooshinuu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbuu bade haddaba barlabaankii mas-uul hawshiisi gabaye hamuun dalku uma qabe hordhiga mooshinuu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbuu bade hordhiga mooshinuu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbuu bade hordhiga mooshinuu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbuu bade